la yiraahdo oo groupka la soo dhigay ayaa waxaan siri bal fiiri jaamacadaanay markaa halkaanay joogto application halkaas ku yaala halkaan waa menuga haddaad tagtid waxaa arkaysaa publication event location topics about us iyo muxuu ahaa marka waa iska xiraysaa halkaan markaa iska xirto halkaan waxaa ku yaalo sidee loo codsadaa haddii aad su-aalahan ka jawaabtid oo aad caddayso dimuqraadiyadda bulshada inaad muxuu ahaa adiga qiimo kuu leedahay inaad tabarucaad ugu shaqayso bulshadaada volunteer society bulshada inaad si tabarucaad ugu shaqayso grades fiicanna aada haysato iskuulle aad kasoo qalin jebisa ama jaamacad aad kasoo qalin jebisa waxbarashadeena waa mid cadaalad ku dhisan oo dadka si sinaana loo siinayo fursadii jirta mar walbaba fursadaba goormaa la codsan karaa halkan scholarship programska ay bixiyaan ku dhufanaysaa scholarship programs laakiin hoos haddaan usii socono sidee u shaqeynaysaa online applicationka ku buuxinaysaa dokumentiyadaada soo gudbinaysaa interview lagu soo dooranayaa kabacdi second selection dhacay doorashada labaad oo dadka la xulanayo kabacdina guddiga ayaa go-aan ka gaarayo scholarship program markaa taabatid waxaa helaysaa oo kaa soo horbaxayo ardayga ugu horeeyo oo jaamacadda markii ugu horeysa dadka dugsiga sare kasoo baxay waa first university semester bilaabayo iyo non semester students dadka aan semester qaadanin oo yacni jaamacad aan qaadanin course bachelor ah iyo waxaa kaa soo horbaxaya dadka jarmalka degan waxbarashada la siinayo basic funds for Germany's educational residents ardayda not first year student kuwa oo sanadka ugu horeysa uusan ahayn waxbarashadooda ama jarmal degano ama ha deganaan basic support for foreigners dadka ajaanibka ah lacagaha lagu maalgeliyo PhD waa doctorate funding kuwa jarmalka degan iyo kuwa PhD-ga oo ajaanibka ah qaxootiga iyo tababaro oo scholarships oo tababaro la siinayo iyo kuwa PhD oo qaxootiga la siinayo dokumentiyadaada oo lagaa doonaya inaad soo upload garayso waxaa ka mid ah first year student basic funding decorate application kaaga login aad galaysaa reimbursement yacni safarkaaga waa lagu celinayaa isagana basic funds uu leeyahay waxaa kaloo jiro warbixino kaloo dheeri socio political commitment dadka ah scholarship ambassadors dadka qaxootiga promote gareeya oo kor u qaado arrimahooda intaasayta markay u kala baxaan muhiim waa Soomaali badan waxay jecel yihiin applicationka la tago laakiin applicationka waxaa ka horeeya intaad waqti isaga luminin inaad ogaato bahashaan waxa laga rabo okay marka applicationka imaano applicationka scholarship marka imaano criteria we do not promote maxaa 100 sano iyo wax saasay ka hadlayaan ardayda disciplinkooda adaabtooda qofka criteria-da la kulmaayo waxa waa inuu ahaado qof nagu qancin karo shakhsiyadiisa iyo sharciyadiisa identificationka inay qiimeynayaan dimuqraadiyadda bulshada socio political commitment arrimaha socialka iyo siyaasadda iyo dadka above average performance oo dadka iskuulada si fiican ugu guuleysteen anyway marka halkaas inta marayso waxaan in la akhriyo rabaan it's not possible to apply scholarship for the film training haddaad tababar lee rabto yacni koorsooyinkan ma soo codsan kartis physiotherapist qof oo si gaaban u jooga jarmalka dadka mashaariicda ka shaqeynaya dadka rabo 3 semester ka yar ama 2 semester inay dhigtaan master degree ah oo short term studies ah research dadka oo sameynayo cilmi baaris college-ka dadka doonaya medical degree course before you pass physics haddaad rabto inaad caafimaadka barato waa inaad physics imtixaan ka gashaa kuwaas PhD-ga waaye
anyway waxaa siito dhan waa ku caajistaan idinka applicationka jeceshiin. Applicationkan waxa waa qofka markuu toos haddii applicationka loo goyo sida aragteen youtuberska ama dad badan oo Soomaali ay sameeyaan toos waxay ku geeyaan applicationka ayagoo shuruudaha ku sheegay applicationka iska buuxine hadhowna carqaladaha ka hor imaana waqtigaagan waa kaa dhamaaday. Su'aalahan ka soo jawaabaa lagu yiri goormaan apply gareyn karaa oo codsan karaa. Applicationka online ka soo buuxi documentigaaga soo gudbi first year student maataa oo jaamacadda ugu horeysay. Basic fund for Germany educational residents kanita matihid foreigners waa kana tahay adika dadka dibadda oo ka imaanaya lacagaha lagu qarash gareeyo dadka dibadda ka imaanaya foreigners waa kana. Personal information kaaga ayaa halkaas gelinaysaa genderka male nin ma tahay female gabar ma tahay name magacaaga halkaas markaa gelis magaca uu waxa gelinay first name ka magacaaga caadiga date of birth waxa gelinay dhalashadaada xagee ku dhalatay wadankaaga halkan ka dooro inta muhiim oo muxuu ahaa inay Soomaaliya ku jirto. Ethiopia waa u jeedaa arday Ethiopian haysanaa waa ku jirtaa Ethiopia. Djibouti waa ku jirtaa. Kenya ma arkaayo Kenya waa ku jirtaa. Okay, so far so good. Soomaaliya raadinayna sababtoo waxa waa dadka badanaa oo kugu lugoynaa inaad toos YouTube kood u soo geliyaan dan waxay ka leeyihiin kaliya inaad u fiirsato. Soomaaliya waa taas Soomaaliya gelinaysaa. Goorma ayaa qorsheynaysaa inaad Jarmalka timaado? Waxaa qorsheynaysaa 6 bilood ama sanad gudahooda waa inaad ku dhigtaa. Yacni September ay hadda bilaabanayaan casharada 2026 September ay bilaawdaan wadankan. September hadda ma imaan kartid because waxaa la joogaa bisha afraad hadda maraynaa. Hadda rabtid September waa ku dhigan kartaa. Hawshaada ma kugu dhamaan kartaa September 2026 halkaas aad ku qoraysaa. Halkan waxaa leedahay I assure that according to 11 paragraph 5 states I'm neither related nor married nor in-law members of the association. halkaas aad tick siinaysa halkaas tigaa siinay يعني qof oo ka tirsan guddiga jaamacadan inaad saaxiib leen familkaagan ahayn. Refugee status kan dadka qaxootiga haysta waaye ma haysataa residence permit sharci ma haysataa oo aad ku dhigato kan kuma qoseeyo no yaa leedahay yes iyo no. qaxooti ma lagu aqoonsiyaa dadka qaxootiga ah waa ku qoran karaan inta inay qaxooti yihiin. Asylum process yani dadka gudaha Jarmalka ku jira waaye dhalasho kale ama permit kale ma haysataa. maxaa Jarmalka aqoontiisa degree hadaa ka haysto oo Jarmalka ah soo sheeg. B2C1 Ingiriiskana kaas waay. Graduationka halkaas ku qoraysaa iskoolkee ka soo dhigatay levelkee taa bachelor ahay dugsiga sare ka soo baxay ama muxuu ahaa jaamacadan ka soo baxay bachelor haystaa master and doona. Marital status waxa waa guurkaaga ma lagu qabaa mise single ata caruura ma leedahay. adariiskaaga halkan ku qoraysaa. telephone numberkan ha u qorin sida Soomaalida markay Soomaalida telefoon ku soo dirayaan waxa waaye +25 ka way ka tagaan. wadankaaga country code sida loo aqoonsado waa inaad 2+ ka bilowdaa 252. former scholarship ma laga siiyay hadda kor halkaas aad tigdhay hadii kale waa ka gudbaysaa. halkan password ku sameyso oo 8 xaraf ka kooban ilaa 20 ah lagu dhahay. halkan mar labaad aad ku celinaysaa. kadibna please note unfinished application automatically delete 30 maalmood gudahood haddaad soo dhammaystirin jaamacadaada application codsigan waa laga tirtirayaa. halkaan inta tigaa leedahay I agree shuruucaha la EDG waa ku raacsana I agree haddana sharciyada u yaal iyo emailka. marka halkaas inta marayso si aad u sii wado muxuu ahaa codsigaaga email baan kugu diraynaa authentication addresskaaga sidaas daraadeed soo taaba linkigaas emailka isla markii haddii aad ka heli weyso emailkaaga dhexdiisana waxaad ka soo qaadataa spamkaaga ka fiiri request a link inta aan lagu dirin emailkaaga halkaan inta link iiga dir dhehaysaa. halkaas aad ku dhufanaysaa emailkaaga link ku dhaca emailkii ayaa soo taabanaysaa waa soo verify gareyn inaad qof jira tahay applicationkii ayaa halkaas ka bilaabaysaa. magacaaga soo geli codsi kasta waa isku wada mid
sharcigaaga soo upload garee maxaa dhigatay qofka muxuu ahaa indhaha intuu furo muxuu ahaa jaamacadaho dhan waa isku wada mid personal details upload your documents muxuu ahaa history oo waxawaaye waxbarashadaada intaasiito waay intaasiito waa idinku filantaa u malaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fursad yaraan u helay waa idinkaga soo faa'iiday mahadsanid